Asxaabta halkan ku jirta, waxaan u sheegaynaa in janalka lagu soo daray program yar oo loogu magac daray faa'iido. Isbuucii hal mar ayuu ka baxayaa halkan. Insha Allah dhowaan waan soo gelin doonaa. Haddii aad xiiseynayso waxyaabo badan oo faa'iido leh ama faa'iido ay ku jirto, insha Allah qaybta hoose ee commentiga noogu qor si annagana dhiirgelin ee noogu noqoto. Mahadsanid. Runtii ilaawi maayo sheekadan waxay ugu dhacday xilli aan jiray 8 sano. Maalin maalmaha ka mid ah, hooyaday iyo aabahay waxay ahaayeen dad igu dhiirgeliyay waxbarashada. Maalinkaas waxaan ku dheelay qolka ku xiga qolka hooyo. Darbiyada oo dhan waxaan ku qoray kalar iyo rinji. Anigoo dhan waan yaabanaa si aan u xaliyo waan fahmi waayey. Markaas waxaa ila joogay wiil iga weyn oo walaalkay ah. Asaga ayaan la tashtay. Wuxuu igu dhahay halkan ayaan seexanaynaa. Maalinkii sidaas waxaa dhacday in hooyo iyo aabba ay u qayliyaan. Anigoo caraysan ayaan qolka isku soo xiray. Waxay ugu dhaheen maxay tahay sababta aad ugu dhedheelaysid guriga, soo ma ahayn inaad wax baratid? Anigana markaas waan yaraa oo ciyaarta ayaan jeclaa. Markaas waxaan dhibsanayay in laygu qaylqayliyo. Aad iyo aad ayuu u darnaa aabahay oo igu qaylin jiray. Habeenkii oo dhan waan ka fikirayay wuxuu igu dhahay aabahay. Runtii Ilaah waxaan ka baryay in gurigan dhan aan iskaga tago, sababtoo aabahay iyo hooyaday way u qaylinayaan haddii aan wax yar haleeyo. Haweenimadkii xilli dambe oo habeen ah, waxaan ku soo gaaray anigoo ceyl iyo xanaaq la jiifo. Mana aanan jiifin oo niyaday wax xun ayaa ku jiray. Runtii markaan waxaan hubaa in qolka ani keligeyga aanan ku jirin. Waan soo kacay, kadibna maskaxdayda oo dhan waxaa ka yeeryeenay wax aan la aqoonsan karin. Runtii waxay qusayeen waxaas xanaaq iyo waxyaabahaas. Marna waxaan maqlayay naag cod dheer codkeeda in meesha ay igu soo gaarayaan. Geesahayga oo dhan cidna ma aysan joogin. Waxaan hubaa markaan inay waxaan yihiin wax juudaaley camal ah. Timo dhaadheerna waa ay lahaayeen. Mar waxaan isdhahay heer aakhiraad miyaa qolka kuu soo galay. Runtii Ilaah waxaan ka baryay inuu Ilaahay badbaadiyo. Laakiin waxaan hubaa markaan in waxaan qolka ay ku jiraan. Anigoo dhan waxaan garto waan fahmi waayey. Runtii ilin ayaa iga timaaday. Aad iyo aad ayaan u baqay. Kadibna waxaa Ilaahay i tusay wax weyn oo afkeeda camal ahaa. Waxaan hubaa markaan inuu ilkaheeda ahaa. Ilka waaweyn ayaysan lahayd. Kadibna lugama aysan ku socon oo waa ay dulduulaysay. Anigoo dhan waan yaabay. Aad iyo aad baan u naxsanaa oo wadnihii baa banaanka iga soo tagay. Habaar waxaan sameeyeen waa garan waayey. Kadib ayaan markaan waxaan xasuustay inay waxaas ay ahaayeen wax aniga aan ku riyoonayay. Runtii waan hubaa in riyo ayay ahayd oo maba ahayn waxii aan arkay maanta oo dhan wax run ah. Si dhaqsi leh ayaan hurdada ugu soo kacay. Kadibna qolkii ayaan waxaan ku arkay in ay garaafa gaarsiisan yihiin. Waxaan u maleeyay in la jabiyo oo kale. Runtii albaabka ayaan iska furay. Dhacdadii igu dhacday habeenka oo dhan riyada ayaan hooyo iyo aabbo ugu sheegay. Maalinkaas ayaa igu dambeysay in shaydaan dambe aan taladiisa qaato, sababtoo ah hooyaday iyo aabahay waa i jeclaayeen. Runtii shaydaankaas wuxuu ahaa shaydaan aniga nafsadeyda halis ku ah. Hadduu cuni lahaa maxay igu dhici lahaa? Dhammaan intii nala soo gaartay dhammaadka sheekadan waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Fadlan like-taada waa muhiim. Like inuu saar muuqaalkan. Haddii aad comment qabtan qaybta hoose inoo soo qor. Mahadsanid.